ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 7aad guutada 18aad kumaandooska sida gaarka ah u carbisan ee Gorgor oo ku sugan deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa howlgal ay sameeyeen ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan dhagarqabayaal uu kamid yahay madaxii miinooyinka argagixisada ugu qaabilsanaa deegaanka Bariire iyo tuulooyinka hoostaga. kumaandooska Gorgor ayaa howlgalkooda ku bartilmaameedsaday dhagarqabayaasha kala ah Cabdi Fataax Maxamed oo argagixisada dhexdeeda looga yaqaanay Dabdiid una qaabilsanaa kooxaha nabaddiidka ah sameynta qaraxyada. Cismaan Cumar oo argagixisada dhexdeeda looga yaqaanay General Koodi una qaabilsanaa argagixisada qaybta sahanka Bariire iyo Aadan Macalin Siraaji oo Aadanay Boy looga yaqaanay argagixisada dhexdeeda una qaabilsanaa qaybta sakabaadka deegaanka Bariire. howlgalkaas oo si gaar ah u qorsheysnaa ay saraakiisha ciidanka xoogga ee ku sugan Bariire inoo sheegeen in ay ka fuliyeen tuulooyin hoostaga deegaankaas oo ay ku dhuumaaleysanayeen sidoo kalena ay dhagartooda ka soo maleegayeen xubno ay ka mid yihiin 3 dhagarqabe oo ay ciidanka gacanta ku soo dhigeen. saraakiisha ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ay baxsadeen xubno kale oo xilal sare u hayay argagixisada oo la dhuumaaleysanayay kuwa ay gacanta ku soo dhigeen balse sheegay in ay ku raad joogaan. geesiyaasha qaranka ee xoogga dalka oo ku sugan deegaanka Bariire iyo guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa muddooyinkan dambe si laba jibaaray howlgallada ay ku baacsanayaan kooxaha argagixisada ah oo haraadigooda uu ku dhuumaaleysanayo deegaano iyo tuulooyin ka tirsan Shabeellaha Hoose.